ururada ama rayidka ama bulshada ama siyaasiga ah ama maxaan ku dhahdaa dhaqanka iyo xukuumaddu waa isku hal bulsho in la isu soo dhaweeyo la baadi doono xulul kasta iyo tallaabo kasta iyo wado kasta oo kalsooni loogu abuurayo qaran quraynu wada nahay waxa dabada inaga tagaya cadawgeennana waa ama inaga ka farxinayna ama inaga ka oohinayna inta badan intaynu inagu siyaaliyo feerkaynu isku dhafanaa ciidaa ka badan iyadoo la isleeyahay xukuumadda iyo waxa la hadlaysaan iyo mas'uul xukuumadeed baa la caayay ama la aflagaadeynaya ama la hadlaya ayaa waxay waxyeelo gaarsiisaa qarannimadeena oo waxay ka farxisaa cadow inaga jecel dumitaankeena iyo hagardaamadeena marka mar kasta oo space la abuuro sina kale dialogue wada hadal lagu sameeynaya ama arrin lagaga tashanayo si aynu wuxuu toosinaa hadalkeena turxaanli u sameeynaa wixii runa u sheegnaa ICT-ga information communication technology hadda imika jirta si fiican ugu adeegsanaa waa mar kastoo ku soo dhawaanayno inaynu inagu kalsooni helayno qarannimadeenu taabo gashay hana qaado cid istacaadeynayso iyadu de gurigeeda dacaayeen qarannimadu waa gurigeena kala bani gurigiisa dacaayeen ka waran haday hooyadii ama isqabsadaan ama walaalkii ama adeerkii dabeedna uu dabada halka soo taago ayada hooyadii aabihii iyo adeerkii ama walaashii ama walaalkii de qaramada wasaas oo kala wada marka run ahaan si taal loo helo dabcan xaggaas ugu dhayaankayga saxaafadda iyo xagga xukuumadda aankayga xukuumadduna ay xog wadaag la yeelato aaminto journalistkii xogtu maraysay waa shay muhiim ah taas uun baa udub dhaxaad oo ayna halkan isugu nimi waxaad moodaa farsamadan casriga ah tiknoolajiyada oo wasaaraddu inoo qaabilsantay wasaaradda Dr. Cabdiwali waanan qabaa war rag ugu aqoon badan maanta liidka ka aqoontaas isagana wasaaraddu hogaaminaya waxay ka mid tahay waxyaalaha sii suulinaya hababkii hore ee loo isticmaali jiray in xogta la gudbiyo hadday idaacatay hadday TV tay nin walba wuxuu soo tuuraya soo guri tuulihiisa jooga ama beertiisa jooga ama arigiisa raacaya ayuu kelmadda ku soo tuuraya mushkiladday soo kordhisay waxay noqotay sidee xogta loo xaqiijiyaa inay runtahay xogta sidee loo xaqiijiyaa inay runtahay inay ka soo baxday source-ka leeyahay way ka soo baxday dad badan bay waxay ku reeysaa dayow oo iyagu xogta uun qaata laakiin aan lahayn xirfadii iyo burhaantii aqoontii ay ku kala saari lahaayeen in xogtaasi run tahay iyo inaanay ahayn marka inaynu gacmaha isu qabsanno inaynu dadkeena gaarsiino xog runa oo aynu wada iib geyn karayno qarannimadeena isku toosin karayno in xukuumadda la toosiyaa waajib weey marka waa tan oo kale in la sii wado waan jecel in la sii shaqeyno hay'adda Solja wasaaradda telecommunication-ka wasaaradda warfaafinta hay'adaha kale ee ka shaqeeya xog tabinta ama xog iyo bulshada kaleba run ahaan waxaan rajaynayaa ra'iis wadaarsigiina inay wax wanaagsan ka soo baxaan inaanu noqon kii ugu horeeya maxadka shaqaalaha dawladdu oo u taagan sidaa uu sheegay Mustafa inuu tayeeyo shaqaalaha dawladda warfaafintii baa kamid ah de ama ha noqoto dawan ama ha noqoto idaacadda ama ha noqoto TV-ga qaranka qayb ay ka tahay kuwa kalena waa soo dhaweynayna inaan waxaan la qaban karayna la qabanana oo soo marayna Solja biidnillah inay inoo sii socoto waa rajaynayna insha Allah taala hay'adda shaqaalaha dawladdu iyadoo kaashanaysa oo ku socota talada wasaaradda telecommunication-ka iyo technology-da waxaanu soo kordhinay wasaaradaha oo dhan in la dhaqan geliyo in sanadkan la sameeyo oo halkay ka ahayd section waaxda ICT information communication iyo technology in laga dhigo waax oo agaasimo waaxeed ay yeelato ujeedooyinka ka dambaysa waxa kamid ah sida uu u liqaayo hababkii hore janaladii hore dhaqanka ahaa ee la isticmaali jiray lagu tabin jiray warka iyo xogta lagu heli jiray inay liqayso hababkan casriga ah ee imika la isticmaalo marka waaxdaas qayb ka tahay in xog wanaagsan laga helo wasaaradihii ay publications ka soo saarayaan information kay tabinayaan maxaan ku dhahdaa war saxaafadeedka qabanayaan noqdo mid la xudan oo qiimo leh oo gaadha meelihii loogu talagalay si la midun baa la doonayaa insha Allah Solja iyo tiimankuna
in looga wada shaqeeyo iyo wasaaradda warfaafinta in ay noqoto xogta inaga tagaysa iyo habkaynu channelada u isticmaalayna mid caafimaad qaba waxaan rajaynayaa insha Allah inay tani noqoto mid inoo iba furto inoo albaab cusub inoogu furta inaynu mustaqbalka qarankeena meel u wada jihayn karayno rayiga iyo aragtida waa lagu kala taganaan karaa laakiin in xog runa oo saxa oo tusmadeeda iyo tilmaanteeda iyo sourcekeeda la yaqaano waana dee waxa saxaafadu ay tahay marka la baranayo mihnadeeda inuu ninka suxufigii meel dhinac ku wax ka dhageysto wada maxay adeeg kula toddobaad soo daayo oo intuu telefoon u soo diro qofkii madaxda ahaa oo yiraahdo waanu weynay hada waxa la yiraahdo soo mishir gareeyaba waxay keenaysaa ma oga laakiin waxaad ogaataa marka soo sidaa la sameeyo dawladuna waxay yeelanaysaa immunity bay yeelanaysaa isku difaacdo dhig u dhigi wada saxaafadii waxay soo qoraysay hadalkeedii ceebaynteeda suxufiyiintii iyo systemkii saxaafaduna wuxuu noqday mid si hagaasay ilaa hadii wada shaqeyn waayaan oo dhalinyaro badan oo media iyo social media iska soo qorto xitaa ka geel raacaw suxufi noqdo iska soo qoro la dhageysto si marka loo ilaaliyo uma baahna xukuumadda qori lahayd laba dhinac bay laga ilaaliyo u baahan tahay labada dhinac bay laga ilaaliyo oo qolada saxaafadda oo ka mihnadeedu toodana kaalinteeda ilaashato iyo rightskooda oo si loo aamino dadkuna u dhageysto ay kaalintooda ilaashadaan xukuumadduna ay wartaminteeda iyo xog bixinteeda iyo qaybinteedu noqoto mid ay u siman yihiin journalistkii saxaafadda oo dhan marka biidni illaahi tacaala khayr badan baan idin rajaynayaa waananu sii wadi doonaa wax kasto iyo tallaabo kasto aynu qarankeena ku hagaajinayno aynu xogtiisa si wanaagsan ugu bandhigi karayno aynu gacmaha isu qabsan karayno waa shay muhiim weeye dhaliisha toosanina positive kale waxun bay toosisaa waxay farxadena maanta ka soo qayb galo hawl noocan oo kala ah waxa la iska weydiiyay sidee ilaamaha dawladdu ay u gudbiyaan xogta culays kala jiro imka taas waxa keentay in qof waliba uu noqdo isaga laftigiisu hay'ad warbaahineed oo madax bannaan hadaad eegtaan waliba Soomaaliya waxa ku badan qof live ka soo fadhiisanayo saacad iyo laba intuu iska fadhiisto wuxuu doonay idhaa war sax iyo midaan saxayn iyo wuxuu maqlay iyo wuxuu ku darsaday intaba cidina hadhow xisaabinay bari baadan soo fadhiisanaya wuxuu yiri wax ka duwan baadan keenay laakiin markay noqoto hay'ad ama institution ama mid dawladaha noqoto mid madax bannaan wuxuu shalay yiri waa lagu la xisaabtamaya marka waa hawlaha ugu badan ee imkan hor yaala kulay waana waxyaabaha laga doodayaan marayno halkan waxa ku jirta sidee dawladdu ama laamaha dawladdu uga faa'iideysan karaan social media si ay ugu gudbiyaan ama u noqoto qaab ay u adeegsadaan xiriirka dadweynaha ka dhaxeeya qofka wasaarad ama hay'ad dawladeed jooga waxa dawladdu loo ogtay ama hay'adaasi ay loo ogtun u sheegi karay sideen markaa ula tartami karnaa qofka madax bannaan intuu iska soo fadhiistay keligii wuxuu doonaa oranaya waa hawl taalayminka waxa kale u baahan tahay laamaha dawladdu waxay leeyihiin website-yo kooban waxa kale leeyihiin account ay ku leeyihiin Twitter-ka ama meelaha kale iyo page ay ku leeyihiin Facebook-yada war yar kooban bay soo dhigaan warkaas ma jiro wax ay dadka la wadaagaan waxa weeye faalada hoos lagu qorayo inta badan cid uma jawaabto waa waxyaabaha inaga maqan yahay inahay laamaha dawladda oo warkii markaad sheegtay wax lagu soo weydiiyo waa in qof kamidi oo dadkii u jawaabo oo la hadlo waxyaabahan ay soo kordhin wax laga aba marka qaarkood in faalooyinka ama comments-kaas ka soo baxan waxyaabo qiimo leh marka kullu waxa kamid ah waxyaabahan wasaaradahan noogu jirtay qorshaha marka maanta mar haddii aynu warbaahintii baynu wax isweydiinayo laftigooda wax badan bay noo taraysaa inaynu sameeyno qaab aynu dadka engagement ugu sameeyno markii noqoto xawaan leenahay